السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلتي wanaagsan asxaabay beel kastood naga daawareysaan ku soo dhawaada mid kale oo kamida qisooyinka cajiibka ah ee aanu halkan idinku soo hadaba qisadan toddobaadkan waxay ka turjumaysaa waxyaabo la yaab leh oo qariib ah oo dhacay sida magaceedaba aad ka garanaysaan waxa la yiraahdaa qisada beertii dhimashada ama mawdka ee deegaanka la yiraahdo qatiif meesha la yiraahdo ayay ku taalaa masra'atul mawt la yiraahdaa beertii mawdka dhimashada dadkii dhintay beertoodii marka waa wax la yaab la waay qisada waa arki doonaa waa u gudbi doonaa qisadan waa qiso waxay dhacday sanadkii 2015 waxay ka dhacday sida magacaba ku cad meesha la yiraahdo qatiif waxay ku taalaa boqortooyada Saudi Arabia waliba waxay xigtaa dhanka la yiraahdo manaatiq sharqiya la yiraahdaa manaatiq sharqiya waa gobolada bariga ah ee Sacuudiga ku taala waa marka waa deegaan beero iyo wax walba ku yaalaan timirtu ku taalo waxyaabo badan dhanka kalena dhulka hodanka ah ee shidaalka Sacuudiga qayb kamid ah waay marka waa deegaan hodan ah beero badan leh dadka halka jooga beero iyo wax walba ay ka shaqeystaan shaqaale badan oo ajnabi ahna dhulkaas way ka shaqeeyaan maalin maalmaha kamid ah in Sacuudiyana oo la yiraahdo Abu Khaliil ayaa wuxuu iibsaday beer ku taalay deegaankaas qatiif la yiraahdo beer weyn oo timirta iyo waxa kan ka baxayaan ayuu iibsaday marka beerta markuu iibsaday wuxuu go'aansaday inuu horumarin ku sameeyo beerta oo macnaha maalgelin weyn ku sameeyo maalgelinta marka waxa soo galay in beerta biyo badan si ay u hesho ceelal iyo wax laga qodo ceelal raadi markii daba ceelka la helay ceelal la qoday ceel markii la qoday waxa loo sameeyay marka waxa la sameeyaa biyaha meel soo maraan oo macnaha kanaalo biyaha ay maraan oo beerta ah si meel badan oo ay u waraabiyaan beertii markii hore waxyaabo timirta iyo waxa hadda marka waxyaabo kala loo inay ka soo baxaan marka loo qorsheeyay oo waxyaabo badan lagu beero oo maaragtay qudaarta iyo waxyaabo badan markii la bilaabay beertii kanaaliskii in loo qodo meelihii biyaha marayeen in la qodo xogaa markii la waday jufa soo baxday jufa waxa la yiraahdaa wax dhintay oo maaragtay meyd lafihiisa soo baxay shaqaalihii ninkii waceen Abu Khaliil saana dhacday waay Abu Khaliil joojiyo dhax shaqada booliiskii la wacay booliiskii ay maaday waxay raadeen annaga beertan waqtigaas dhow ayaan maartay la wareegnay waa horumarinaynay meeshan markaan qodnay waxa ka soo baxay lafahan dadka dhinteen booliiskii waa qaadeen lafii waa baareen way qaadeen lafii way la tageen nimankii shaqada hakiya la yiri way sugeen iska wataaleen marka shaqadiina annaga meydka annaga baarneen nimanka god qodistay wadaan soo wadeen hadana labo meyd aadana soo baxay yab booliiskii waad warkaale meeshaan masra'atul mawt waaye baxay marka wax yar qodnaba madaxaba saasoo dhaayay baxda meel la isku xasuuqay waaye waa sanadkii 2015 waaye booliiska way yaabeen waxay leeyihiin meeshaan wax ka dhacay oo dagaal ma jirine waxa dad lagu laayay markii beel la qodayba madaxa soo baxayo gacan taagan iyo maxay tahay
بوليسكي واي ماذا لدنا حتى لبدي قف قادن بل حتى حوغا جوجينا ان شاء الله بل meeshaan waxa ka jira ma naqaan حتى حوغا markii la joogay xalinahay shaqadiina iska wad baaritaanka wadnaa haddana waa la waday qab cabaar markii la wada laba kale haddana warsiye wuxuu meeshaan markaa annaka waxay yiraahdeen macquul ma meeshaan godka waxay raadii la qodaba lug taagan iyo gacan gees iyo maxaa waxaan meeshaan goorma la isku laayaa leeyahay war booliiska ayaa waxaan meeshaan goorma waxaan ka dhacay waa hawla wala quwwata wardadka meeshaan lagu leeyahay maxay ahayd wax booliiska oo akhbaarada oo Sacuudiga soo gaaray iyo wax dhanba ma jiraan meeshana markii talaab la qaadaba luga taagan gacan gees iyo maxay tahay waxaan war hoosha joojiya baleer sugabal sheeka dhow ma booliiskii dib ay ugu soo laabteen godadkii waa la fogay meeliya la fiiri dadka laga soo saaray waxa laga helay dokumenti yar oo gees wax yar ninka meesha ku duugan waxa uu yahay dokumentigiisu waxa saaleen alxamdulillah leen bal horta raadka waxa kad waxay yihiin baanu daba galeynaa beertii waa la joojiyay shaqadeedii booliisku waxay bilaabeen marka taxqiiq baaritaan dhab ah meeshaan la isku xasuuqay beertaba hadii wax yar la qodoba lug taagan iyo madax taagan maxay dadkan goorma meeshaan lagu laayay magaciyaal raadiyay ninka waxa soo kala la ogaaday mid kamid ah meydadkii markii lafii meesha laga qaaday farihiisii waxa ku jiray faraanti dahab ku jira oo ku qoran yahay magac haween macnaa naagtiisa magaceeda amal ku qoran inta kulligood waa wada rag laakiin shanta meesha laga soo saaray marka maadaama horumar weyn hadda caafimaadka laga sameeyay oo lafahan waqtiga ay dhinteen la ogaan karaa iyo asbaabta ay u dhinteen ka hor caafimaadku waa horumaray wala qaaday kulligood waxa la geeyay meesha la yiraahdo caafimaadka la baaray الطب الشرعي yiraahdo carabta caafimaadkaas la soo baaraa lafahaas waxay u dhinteen caafimaadkii marka baaritaan rasmi ah lagu sameeyay dawladda meeshaan waaba la isku xasuuqay dad badan aba lagu laayay meesha waxa ka dhacay oo aynaan war ka hayn annagoo dawladii ah maba dhici karto waxaan hal ogaaday leey dawladdu waxay tiri qarash kasta ku bixinayna waxaan waa in la ogaadaa waxay yihiin waa la isaga yimid riyaad meel kasta dadkii booliiska ugu waaweynaa Sacuudiga dhan waxay soo yimaadeen qatiif meesha mazra'atul maut loo bixiyay meesha beertii dhimashada la mazra'atul maut meesha soo yimid qoladii markay muddo haysteen dib u sharciga waxay yiraahdeen afar iyagoo nool la aasadeen oo fiirsada caafimaadka horumarka uu gaaray waa mogtay afar kamida lafahan dadka dhintay waa rag waxayna dhinteen iyagoo nool la aas meesha waas haye midkan kalena isagoo dhintaa la aasay dacan ku jira macnaa toorey badana ku dhacday kan wuxuu u dhintay tooreydaas aan u maleynayna marka kulay midkaas isagoo dhintaa la aas ninkii marka booliiska haystay oo gobolka Safwa la yiraahdo gobolkan mandiqada ka tirsantaa qadiif mandiqa sharqiya oo bariga ninkii booliiska ugu sareeyay wuxuu yiri waxaan rabnaa dib u sharciga nimanka caafimaadka soo baaray waqtigii waxaan ay dhaceen inay keenaan nooy baaritaan ha lagu sameeyo waxa kan qiyaasta waqtigii ay ahayd waa in la keenaa macnaha raad raaca la rabaa waxaan meeshaan beertaan markii la furo wax la soo taagay gacan bari aadalug wax socdo maxay tahay waxaan waa inaan la ogaaday sheekadan sheeka caadi ma nimanka caafimaadka dib isugu laabtay baaritaan u sameeyay waxay yiraahdeen 5
ilaa 6 sano ka hor waayo waxaan markaa la aasay dadkan ay dhinteen macnaha 2015 la joogaa moogta 5 sano ka hor maxay noqonaysaa 2010 meelaas ama 2009 6 sano hadii loo meelahaas ay noqonaysaa wixii marka booliisku marka waxay raacayaan wixii moogtahay baaritaanka la rabaa in waxan laga sal gaaraa la rabaa sheekadan macquul ma الله وحي على قطي في الحري حالي مركب بيرتان لما كن طبنكي يا اسكالها كان هادو إماضي قدتك قداية لما ربو لما كن طبن بيرتان مشكلة دان مركاسي دعوي سماها مركاسي دادك لقواسي ها لما كن طبن بيرتان يا اسكالها لستي lahaanshiihii wixii booliisku baaritaan soo sameeyeen Jaabir leeyraado oo Sacuudiyaan beerta wuxuu iska lahaa 2010 wuxuu wareejiyay 2011 marka oo nimankan ay qiyaasayaanna waa 2009 ilaa 2010 6 sano ilaa 5 sano ka hor meesha lagu aasay okay Jaabir markaa la soo qabto dhahay جابر كسعوديان كا أو بيرت حلقة إشكالا معلك هذا كأنه نب الأساسي نكي جابره وهذا كجور منطقة الشرقية رولك لو جيسك كل السعودي بيجوري نكي على سوقبتي صدق بليش على كان وحالي هذيك ولقى بير ملها تالي نكي عنده كمريك شيء وراديك بير ما لها تي وليغا ما نين بير لي ما نقطي ما لها هي موقته بيرتاس ما لها كان waxaas dhan la weydiinay ninkan waxa la rabaa inuu asagu wuxuu leeyahay mara beer lahayn jiray hay beerta xagee ku taal qadiif goormay gad beertaas 2012 okay ahlan wa sahlan soo dhawaal marka وحال يريني وحاك ويديننا بيرتادا dadka yaa ku xabaalay ninkii waa naxay marka waxaan weligeeda la ogaanaa ninkan isma lahay balaayo waxay ka dhacday nina ceelaan qodanay tiiri ba ninka wixii baasha ugu aasnaa banaanka keen ninkan wuxuu yiri سيكو أوغاتين وراي بوليسكو وحودا سيكو أوغاتين بيرتا إنا داد لغاس محاكا أقل اللي رادي سألك كو أوغاني بيرتا حلقاس أديك الله هاي دادك لغاس بحي هاي شاك نيكي وحو يري إنو إنكرو الضمعي وحالي لغيسو وحدن واحينا لير كيس كدن واحينا نيكا مركبو نحي هذا واحد إنكرتنا دوا قطر نيكا مركبو حشري واحد ماشي كالا دعس سيدي وحود عايشك وحير واشيغا ولا مركب أنيقا ما دام وبعشان مالا كو قرصري لكن فضيحة إلهي بابناك كانوا راي وحقر سوما معا مركب ماشي رتان إلا تاقو راي هاي شيغا لين محاد عاي وحير نما وراي دي شيغا هاي beertaas kaliya ma ahan haye wuxuu yir beero kale meelaha ku yaalay aniga beerta dadka la dilay kama hadlayo laakiin beeraha meelaha ku yaalo oo idinka aad u haysataan in maaratay timir iyo alaab kale iyo waxaan ay ka baxaan waxaas waa mawduuca guud waaye laakiin hoos shaqo badan ka socoto بوليسكي وايابا محا سعودا لين وحيدا دي خمريغا waxa daroogada waxa qashinka warshada sameeya meesha ku rakiban raay annaguna qayba ka mandiqa sharqiyada marka waa dhulka naftada iyo dadka degan oo Sacuudiyaanka meesha waa niman dhib badan oo shiica waay nimankaas
ونبن شيعة أبطل واي وهذا سنيين بدل على الدجيل لكن ماشي إيريا الشيعة الله ولوك نفترض معنا شدال كسعودي وهذا كويا ماشي كسب بحواي لما كان بركوا عدين نكا وحيري ماشي وحكوا سميجرني خمرها كسميجرنون أنا خمرها سميجرني هاي alaaba meesha noogu rakibneed nimanka meesha iga shaqeyn jirana niman hindi ahayn aasawiyiin aasiyiin macnaha hindi iyo waxaas ahayn in Nepal hindi iyo waxaas ka shaqeynaa meesha marka qamriga waxaa loo iib geyn jiray suuqyada macnaha si qarsoodi ah dadka ajaanibka iyo dadka sacuudiyaanka iyo laga iibin jiray lacag waaliya laga sameeyay jiray marka sacuudiga qamriga waa mamnuuc marka lacag badan marka laga sameeyay jiray hay maalinta dabba marka wuxuu yiri kuwan ii shaqeynay aniga hindiya ahaayeen oo hawsha ay waday waxaan ogaado yiri baasha inay si hoose wixii ay iga xadayaan hay marka laba nin oo sacuudiyaan u soo wato oo qaraabadayda ayagii oo dhan waa isku balamiyo dhahay aawo wuxuu yiri wax qamriga oo la gadaa ma jiraan qamriga annaga isku daynay hay qamrigi annaga abayna iriiri hay inay ma kaala u dhaarsano waliba ninkii hawsha afgambiga ku bilaabay shirkadda oo meel hoose wax ka dhiibay meesha kan kulligood qamriga ku daldalo anigana waa cabayo yiri haye labadii wiil oo sacuudiyaanka waxa dhan waa wada cabnay haye annaga marka qorshe dhawaal mindiya inta qaatay wuxuu yiri marka aan waxaan dilo yiri dhowr toorre ku dhuftay kii hawsha waday oo kaabaha u ahaa hindigii waa dilowna kuwii kale waa naxeen kuwii kale marka waxa ii qorsheysnaa kuwaan marka ninka marka dilo iyagana inta xirxiro aan godka kurido goda ay ugu diyaarsanaan meesha nimankan way la shaqeynayeen niman xoog la oo sacuudiyaan oo xoogaa fiican ka soo nimankan hindidana waa iska jabiyaro meesha socda waaye kii marka godkan ku rido waa dhinta kaas dhowr xabaan ku dhuftay nafta ka bax kuwaana xirxirooyin marka ayagoo nool ayaguna laba meelaan ku riday xoogaa kadib haddana laba kalena meelaan ku riday markaasaan caradii ku daboolno yiri hawshaasaan qabanay sheekadu marka sidaas ahayd nimankaa meesha anaa ku duw markii 12 la gaarayna waa iska iibiyey masracadii macnaha beertii waa gaday police waaye macalin wax kale ama ku aasay beertii wax kale ma shantaas laahay halkaas asagoo dhintay aan guduugnay afarta nolol ku duugno laba kurin marka inta meesha laga helo waaye inta dib u sharciga ama caafimaadkii baaritaanka u sameeyay fiir horumarka adduunka la gaaray caafimaadkii ay sheegay waxay yiraahdeen kuwana iyagoo nool la aasay mid kan isagoo dhintay toorree lagu dilay sanadkuna waqtiyadaas u ahaa oo fiir asaga muxuu dhahay 2010 ahayd markii sheekadan ay dhacaysay booliisku way yaabeen marka maxay marka horseeday beerihii eriyada ku yaalo dhan waa la baaray timirta iyo alaabtana u jeedaa iyo canabkan iyo maxaa kale alaabta hoos waxa qamri lagu sameeyo waxa laga soo saaray meesha beerihii eriyada ku yaala qadiifka waa yaabaysaa newska dhan bay istaa 2015 lagu leeyahay sida qisada qoraaga uu qoray laba marka wiilkii labadii kale uu sheegayna waa la soo qabtay sacuudiyaan waa kulligood saddexdoodii waxa la keenay maxkamad marka qoraaga sheekada wuxuu leeyahay qaadii xukunka ridayay mid kamida qaadiga waxa uu sameeyay dilkuma xukumin sababta marka ma garanayo dhahay kulay waxba meesha ka looga ogaaday laakiin ninkii beerta lahaa jaabirkii iyo midkii kale waxa lagu xukumay seef in qoorta looga jaro waa la qabtay
ولا جاي تيركا سيفتا قورت لوغا جاري نوكاس ولا دلين وحسو كلا iyaguna dadkii la soo qabtay kamida kuwa kale hindi ah oo jaabirka uu sheegay qaar horta intii uu sheegay badankood way carreeno way ka tageen markii wadanka way ka tageen kuwa kale dhowr la soo qabtay iyaguna wala waxa lagu xukumay tacsiir karabaash iyo ganaax iyo waxba lagu xukumay wadankana waa laga masaafuri marka maxay horseeday in qadiif loo bixiyo beertan sacuudiyaanka waxay u yaqaanaan hadda قصدي مزرعة الموت أو قطيف ماشي اللي كان على الأولى مركب مزرعة الموت كاس أيام مركب وحكوت على مجال ناس وحسوا كل هرسادي إن قمر يوحد لنيو ماشي مركب لا يسوى صاروا أو ورشد بدن وقمر ماشي لا يسوى صار مركب أدوكم مركب هالكاس واي حالته هالكاس برس مركب شيء كذا إني أما قصة إني تضبط كان كوساب سند dhibaatadii ka dhacday iyo baaritaankii booliiska sida la yaab kale ugu guuleysteen iyo sida wax loo soo saaray ee ka dhacday Sacuudiga gaar ahaan qisadii Mazra'atul Maut inta ayaan ku soo gabagabeynaya inta aan qisooyin kale aan ku kulmayno asxaabay meel kasto aad naga daawanaysaan ku xirnaada markasta channelkeena qisooyinka Nadaara 2 oo aan mar walba qisooyin idinkaga soo gudbino inta aan mar kale kulmayno iyo qiso kale nabadgelyo